السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa channelka Emras kusoo dhawaada. halkan waxay la fadhiyay garabkayga midig aqoonyahan Soomaaliyeed Maxamed Maxamuud Ibrahim kusoo dhawow channelkan. Thank you so much. waxaan rabnaa inaan ka hadalno qodobo yar oo aan sida u badnayn. su'aasheedu ugu horeyso maadaama aad tahay aqoonyahan ka soo jeedo gobolka Hiiraan maxaa sababay dib u dhaca ku imaan karo gobolka Hiiraan haddii aan ku sii carabaabo dhanka siyaasadda dhaqaalaha waxbarasho la'aanta ganacsiga maxaa isleedahay uu sababi karaa arrimaha noocaas bismillah horta salaam iyo gudaha ummadda Soomaaliyeed sida badan waxaan u hadlaa Soomaali weyn gobolka Hiiraan kaliya uma hadlo Soomaali bal bu joogto dhibaatada ka jirta ka hadla ama geeska Afrika xaalad siyaasadeed ka jira ayaan ka hadlaa balse hadda usoo daadegis aragtidaad ahayd gobolka Hiiraan waa gobolka kaliya ee maaragtay magaalada Muqdisho la tartamay caasimad ahaan in laga dhigo caasimad beledweyne in laga dhigo magaalada Muqdisho waxaa loo tartamay labadaas waxaa qaaday cod ku qaaday magaalada Muqdisho beledweyne waa caasimada qadiimi ah waa caasimada koowaad ee ummadda Soomaaliyeed gumeystihii berigu jiray صح waan ognahay inay taariikhyo badan leedahay ay in xusub mudan tahay laakiin hadda qodobada aan hadda ku weydiiyay maxaa sababi karo Hiiraan waxaan ka hadlaynaa hadda inta kale oo soo laabanayna Soomaalida iyo wixii kale oo ka dhaco meelaha kale laakiin hadda barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay Hiiraan waxaan dul taaganahay qodobka Hiiraan maxaa sababi karo markasto aan kugu celiyaa su'aasheeda kale maxaa sababi karo su'aasha ay tahay fatahaada aan kaaga bilaabay hadda oo soo laabata markasto fatahaadaha iyo colaadaha ka yimaado gobolka Hiiraan ku yimaado iyo maaragtay arrimo kale oo aad fara badan waxa sababo dadka maanta hogaaminaya oo lahayn aqoonteed ama aragtiyadoodii maaragtay ay safureen caasimadan ama magaalada beledweyne waa gobol aad u ballaaran saan ugu sheegay waxay u baahan tahay dad aqoon u leh iyo karti iyo inay hogaamiyaan aragti fogna leh haddii taas la helo waxay noqon lahayd gobolka kaliya ugu maaragtay ugu barwaaqada badan ugu soo waxsoo saarka badan marka Hiiraan weli ma u sahlin dadkii ehelka u ahay ama maamulkeeda sixi lahay war u qaban lahay weli ma sahlin okay marwa carabaabi kartaa waxaa isleedahay hadda dad waxaa hayo siyaasadda hadda Hiiraan dad fiican ahayo maxaad ku eedeynaysaa in waxbarashada ay ka liidato dadka hadda oo gobolka Hiiraan maamulkeeda maxaa ku eedeyn kartaa markii bulshada ay wax dhisanayaan waxa fiican iyaga ka timaado bulsho maamulkeeda laga soo magacaabayo degmada Shabeelle oo sinniman aqoon u lahayn dadku magacaabayo soo magacaabayo horumar ma keenayso dadku ay ka dhex yimaadeen bulshada is doortaan taas ayaana Hiiraan ay ku noqon kartaa Hiiraanteedii hore ama Hiiraan sax ah marka ma dhacayso nin laga soo doortay Jowhar oo maaragtay maamulkiisa maaragtay ka yimid Hirshabeelle oo maanta xaaladeedana ognahay iska laqanayso Hiiraan aysan raalliba ka ahayn dadka laga keenayo maamulka Hirshabeelle dadka reer raalli ka maabarnaba weli shacabka codkooda ma la dhageystay oo shacabku ma isku dayeen in ay wax doortaan haddii aad hadda ku carabaabay in degmo wax laga soo dooranayo marka maxaa diiday tusaale ahaan hadda Buuliburte iyo Beledweyne dadka jooga inay isku xirmaan ay wax wada doortaan inkastoo laba degmo ay kala yihiin shacabka Hiiraan aan ku sheego shacabka Hiiraan magaalada Jowhar ayaa si jajuuba loogi kuma la xildhibaan awood leh xukuumadda wasiiro xukuumadda dad maaragtay siyaasadda matala oo dhab ah oo maaragtay reer ka socdo marka ilaa laga hela reer Hiiraan sax ah iyo doorasho awood qayb sax ah oo Hirshabeelle ah reer Hiiraan marnaba raalli kama noqonaya maamul walba la keeno maamulka Hirshabeelle kama noqon doonaan
okay maadaama maamulkii wax oon qaban karin dhanka dhaqaalaha marka shacabkii isku dayeen inay wax qabtaan ay wax isku qabsadaan nafsadooda wax u qabtaan ay dhaqaalaha horumariyaan deegaanka horumariyaan fatahaadaha ay ka hortagaan fatahaadahan waxaa looga hortagi karaa in la dhiso webiga markasta soo dudumayo oo haddii webigaas la dhisane waxay noqon kartaa wax qurux badan sanadka dambena ma laga yaabi karo inay soo fataho webigaas maxay kula tahay ra'yigaas webigan iyo biibaxdan dowladda weligeed qaban jirtay dowladda ahaa jirtay shacabku canshuur baa laga qaadaa lacagahoodina dad baa farqaha ku shubto hirshabelle la yidhahdo marka maamulka hirshabelle ilaa meesha uu ka baxo ama awood qayb saxa la helaan ma dhacayso maaragtay ma dhacayso inaynu maaragtay hirshabelle hiraa hesho xuquuqdii lahayd ilaa awood qayb saxa laga helo oo hiiraan iyo nimanka la yidhahdo maamulka la yidhahdo shabeellada dhac ay heshiiyaan oo maaragtay si saxa awood qaybsiga loogu heshiiyo ma dhacayso in maaragtay hiiraan ay raalli ka noqoto hirshabelle ku darsashadeeda ma dhacayso. waxaad leedahay siduu hadalkaagu u egyahay hiiraan ma helin wixii ku munaasab ahay xaqeedii maya xaqeedii marna ma helin hiiraan reer hiiraan xaqooda ma helin reer hiiraan xaqooda marnaba ma helin hirshabellena raalli ma noqonaya ilaa laga wada heshiiyo maamul ahaan loo heshiiyo hiiraan waa laba gobol waxay u qalantaa laba gobol waxay ka hartay goboladii dalka ee laga dhigay 8 laga dhigay 16 marka ma dhacaysa marnaba hiiraan xaqeeda marka hesho ayay noqon kartaa hiiraan saxa waxaan rajeynaynaa mustaqbalka dhow waxaa hiiraan kasoo bixi doono dhalinyaro qurux badanaa kasoo horbixi doono oo hiiraan gacanta ku qaba doono sidaan hadda wada ognahay dhalinyaro waxaa jirto aqoon leh oo usoo shaqaysanayo gobolkooda marka mustaqbalka dhow insha Allah waxay noqon doontaa hiiraantii la yaqaanay iyo wixii fiicnaay oo laga sugaay marka insha Allah Maxamed waa maasanta su'aasha intaan soo gabagabeeyay rabaa raalligaaw inta hiiraan maamulkeedu hirshabelle ka imaanayo hiiraan fiican ma la sugayo waana shacabka ummadda Soomaaliyeed ku soo jeedaan shacabka reer hiiraan marnaba raalli kama noqonaya in hiiraan looga soo magacaabo maamulkeeda magaalada Jowhar waan ku salaamaya waa maasantahay halkaasna waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii aan kaga hadlaynay siyaasadda yare ee gobolka hiiraan marka waxaa ila fadhiyay garabkayga midig fadhiyo maxamed maxamuud ibraahim ugu magac dheer maxamed daad marka aad iyo aad u mahadsan tahay waqtigaaga quruxda badan adiga asxaabta maasantiin oo ugu mahadcelinaya sida maaragtay sharafsooda igu yeerteen aad baad u mahadsantihiin waxaa gadaasha taagan kaamiramanka maxamuud raas maxamuud waad mahadsantahay adigana